maanta waa maalin aad iyo aad farxad u leh waa maalin aan ka maqnayn anigii waftigii aan hogaaminayo iskugu jiray baarlamaanka iyo gudoomiyaha ururka hooyooyinka Jubbaland 71 cisho bay noo tahay maanta safarkan aan kaga tagnay halkan waxaan soo qabanay wax weyn oo Jubbaland oo qabsoomay waxaan idin wadnaa Jubbaland oo aan kala qoqobnayn waxaan idin wadnaa Jubbaland oo midowday waxaan idin wadnaa Jubbaland oo hal meel ku abtirsanayso hal meel ku toosi doonto hadduu Ilaahay raado waxaan idin ka mahad celinayaa soo dhaweyntiina qaaliga noo samayseen waxaan idin ka mahad celinaynaa intaad qorraxda taagneedeen mar haddii Jubbaland ay midowday maxaa noo yaalla way markaan waxaa noo yaallo inaan talaabsanno oo aan horay u soconno reer Jubbaland oo dhan isku duuban saddexda gobol oo isku duuban ee Jubbaland isku yiraahdo inay danahooda u soo jeestaan oo u talaabsadaan markaa wixii ka dhimanaa oo ay dhamaystirtaan waxyaalaha yaryarka ahaa oo dhimanaa si ay u diyaar garoobaan cadowga yarka ahaa ee ku dhex jiray meesha aan ka imid iyo meesha hadda aan joogno inta u dhexayso oo targetkanaga koowaad uu yahay sidii lagu xoran lahaa gobolka Jubbada Dhexe oo kaliya xoog saari lahayn haddaan koonfurta joognay haddaan waqooyiga joogno Jubbalandba aan xoog isugu geyn lahayn gobolku hadda ka yimid macallin Maxamed oo garabkayga fadhiyo oo aan filahayay oo soo qabtay bool inuu yiraahdo markaan ka imaado laakiin waa qaban doonaa macallin Maxamed ma qabanayna insha Allah aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa soo dhaweynta aad noo samayseen iyo farxaddii reerinta aad u xiisanaysaan meesha waa garoonkii wasiiradii iyo ururadii kala gudisnaa iyo baarlamaanka dhan baa joogo madaxweynahanagii iyo xaruntii madaxtooyada way naga dambaysaa wixii war ah gadaal baan ka dhigan doonaa aad baan idinku mahad celinayaa muddo qorraxda oo kulul ogeyd salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hore loo sheegay siyaasiyiintii Jubbaland ama gadaha joogaan ama Jubbada hoose joogaan Jubbada xalay joogaan wax qalaf oo weyn oo hadda taagan ma lahan saad la socotaan berri bisha 20 weeye saan isku ognahay waxyaalaha yararka oo mugdi oo dhimanaa tafaytirkooda iyo dhamaystirkooda berri wixii ka dambeeya ayaa gobol la fidin doona aad ogtiin goboshaas oo ka soo qodol doona siyaasiyiinta reer Jubbaland wax reer Jubbaland oo siyaasada ma lahayn siyaasiyiin yar oo waxyaalo ka tabanaya jiro taas dhamaystirkeedana berri bay noo furmi doontaa si guul iyo farxad ay ku dhamaan doontaa insha Allah ta'ala